mudane maxamed waxaad nooga warantaa sababta aad maanta halkan u timid waxa ay tahay iyo waxa uu barnaamijkani uu ku saabsan yahay. bismillahi raxmaani raxiim. barnaamijkan maanta halkan aan ku qabanaynay wuxuu ahaa la socday oo daba socday barnaamijyo badan oo maaragtay awaalshiyo caalamka ay ku qabanayeen. sidaan la wada socono February waxay maaragtay tilmaan u tahay xasuuqa ka dhaca ogaadinaya maalin kasta iyo habeen kasta iyo maaragtay sanad walbaba ayay tilmaan u tahay laga soo bilaabo xilliyadii maaragtay gumaysigu markuu dhulkeena yimid maalin kasta xasuuq waa ka dhaca waddanka ogaadinaya khaasatan bisha February waxay ahayd bishii maaragtay reer ogaadinaya oo aqoonsadeen inay tahay bishii xasuuqa reer ogaadinaya. waxaanu maanta maaragtay meesha isugu nimid oo bulshada reer ogaadinaya oo dhan oo aan u kala harin hadday tahay odayaasha, hadday tahay dhalinyarta, hadday tahay hooyooyinka, hadday tahay carruurta oo aan laga yaabo inaad arkiisa ciyaalka yaraa ee maaragtay gabayada af ingiriiska ku akhriyey runtii ka ilmeysiiyey dadkii meesha isugu yimid. waxay ahayd inaan maaragtay dadkanagii maaragtay la gumaaday ee la xasuuqay ee gumaysiga Ethiopia uuna wax maaragtay u kala reeban dhibaato ah in maaragtay maanta aan meeshan ku xusno oo aan ilaahay u barino oo aan maaragtay ilaahay u barino in maaragtay intii dhimatana ilaahay una naxariisto in damba inta jeel ku jirtana in ilaahay ka sii daayo tusnana caalamka dhibaatada ka jirta ogaadinaya sawirradii iyo maaragtay fiidiyowadii ugu dambeeyay ee laga soo duubay dadkii dhibaataysnaa dadkii ka soo tegay waddankii qaxoontiyada tegay waraysyadii laga soo duubay waxyaabahaas oo dhan baan maaragtay runtii aanu bulshadanada la wadaagaynay waana wax maaragtay muhiim ah oo mar kastaba inaan xusuusnaano oo aan faatixada u marro oo aan maaragtay bulshadanada iyo bulshada caalamkaba inaan maaragtay aan la qaybsano dhibaatada dadka naga haysata ayay maaragtay shirkaas maanta u badnaa waxaana lagu qabtay jaamacadda Minnesota School of Law baa lagu qabtay. bismillahi raxmaani raxiim. ninkan aad u jeedaan waa halgamo sare waa xubin ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ogaadinaya ku dhaqan gobolka Minnesota wuxuuna ka soo qaybgalay barnaamijka maanta lagu xusiyey xasuuqa ogaadeen ay geysato cadowga Ethiopia ama gumaysiga Ethiopia. waxaan leeyahay mudane cabdirashiid waxaad marka hore nooga warantaa shucuurtaada sida ay tahay iyo barnaamijkan aad ka qayb gashay waxa uu ku saabsanaa. barnaamijkan ka qayb galay barnaamij aad u fiican buu ahaa ka sheekeynaya xuquuqul ka jirta ogaadeen iyo sida dadka reer ogaadeen dhib loogu geysto waxyaaluhu ninka hadda noogu lan sheegay waxyaalaha dadka bini'aadamka ay geysan karin ma aan ugu samayn karin waxuu ka sheekeynaya marka arrintani arrin aad loo taabatay maadaama shacabka reer Minnesota ama shacabka reer ogaadeen marka arrin loo dulqaadan kara ma raggii ficilka sameeyey uu soo wareystay oo uu ka soo qaaday waxay sameeyeen oo rag bixinay marka arrin aad iyo aad u fiican oo human rights ayuu soo bandhigay waana arrin loo baahnaa. mudane rashiid aad ayaad u mahadsan tahay. runtii waxaan rajaynayaa in maaragtay barnaamijyada noocan oo kale ah insha allah marar badan la qaban doono. barnaamijkanna ma aha barnaamij hadda ugu horeyso qabashadiisa waa barnaamij lagu qabto dhammaan adduunka dacaladiisa waana barnaamij la xuso bisha labaad. marka mudane cabdirashiid aad ayaad ku arkayna wuxuu ahaa runtii waxyaalo qof walba oo human being ama bini aadan wuxuu qiiroonaya oo isugu jira video la soo duubay iyo sawirro intaba markii uuna beeray maaragtay waxyaalo badan oo runtii in badan aan maqli jiray laakiin aan maanta aan dhigay ku arkay aan ku daawaday. marka aad ayaad u mahadsan tahay maxamed. daawadayaal ninka halka aad ugu jeedaan waa Lubbi Deeq Cabdiraasin oo runtii aad wada garanaysaan wuxuuna ka mid yahay xubnaha jaaliyadda Soomaalida ogaadinaya gobolka Minnesota. marka waxaan rabnaa inaan wax yar ka weydiino Lubbi shucuurtiisa sida ay tahay iyo barnaamijkan dareenkiisa waxa uu dareemayo. marka mudane Lubbi nooga waran bal shucuurtaada iyo barnaamijkan waxa uu ahaa. marka hore mudanaasi bismillahi rahmaani rahiim maanta shucuurta midaan oo kacsan tahay dad fara badan baa meesha isugu yimid iyadoo laga hadlayo xasuuqii laga geystay dalkeena ogaadaya maantii dad badan baa isugu yimid oo meel walba ka kala yimid dad
wada caddaana ajnabi ah dad badan runta si fiican bayna noogu soo qabsantay waxaan rajaynaynaa sanadka ka dambe insha allah inaan si tan ka sii fiican oo kale tahay la yidhaahdo aad ayaad u mahadsan tahay mudane lugdi marka insha allah waxaa maanta halkan noogu dhammaaday waraysyadii aan idiin qaadinay oo runtii ahaa barnaamij ku saabsan xasuuqa Ogaadeniya lagu xusiyey oo ka dhacay gobolka Minnesota aad ayaad u mahadsantihiin